kaalmee kuwani waxay galeen kaalin xoog badaane karti iyo hufnaan bay kaslaan li shaqeeyaane waxa ay kalkaalaan dadaan cidi karaamayne ajar bay kasbanayaan ducay kororsanayaane kaalmee kuwani waxay galeen kaalin xoog badaane kabaygii dameerkii jabiyo kudha markaan eegay kunka badan intay kaalin madhan keligood buuxsheene kaalmee kuwani waxay galeen kaalin xoog badaane noloshay la kaabaan miskiin kiradii loo haysto agoon hooyo keligeed ku tahay bay la koriyaane kan waxaysta oo ladanka kalay keene kaalmee kuwani waxay galeen kaalin xoog badaane ninkadeed adduun lagu dul furay cudurna keenaystay oo katiinad kala goysay oo kubiyo low beelay oo geed kudkude hoosta kule looga kala yaacay oo kelabka qayshiyo dhurwaa korada loo geeyey kutaantiyo kaneecadu sidii koronkorow fuushay iyagaa u kuurgalay intay kamarad qaateene kiniya qof joogiyo iyaga kanada gaadhsiiyey coldoono waxaad kaafiseen karin bannaanayde coldoono waxaad kaafiseen karin bannaanayde rabbi waydin kaalmaynayaa adiyo kooxdaada oo kooraha halkii aad dhigteen kor uga sii guuraa oo ummadda Soomaaliyeed ay taqaan oo cid kastaahu ay codkiisa ka heli jirtay waad u jeedin xaaladiisu soo taag marka qofkii muslima ee Soomaaliya ee damiir ha u damqado walaalka ummadda dhan ay jeclaan ee aad jeceshiin haddana aad ugu xaalad ku sugan xaq looga bixiyo intaas ayaa codsanaynaa waa cidii wax garata ee damiir la ayaa ka codsanaynaa cidaan wax garano wax ma dhaanto asaga ma kaas wuxuu ahaa abwaan guure waa afhayeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed oo aan si wada jira u soo booqanay Cabdi Tahliil oo ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho ilaahay waxaan uga baryaynaa annaga iyo idinkuba inuu ilaahay caafimaad siiyo sariica degdeg siiyo waxaan ku soo booqanay maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha 2016 xarunu ku sugan yahay halkaas oo ehelkiisu ay la joogaan ku daryeelaya laakiin waxaan ugu baaqaynaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay diiradda saaraan toddobaadkan waxaanu diiradda saaraynaa Cabdi Tahliil si daryeel caafimaad oo intan ka ballaaran loogu heli lahaa yani maxay u dhacdaa badanaaba dadka ummaddu marka hore ay u aragto halyeeyadooda hormuudadooda dadkooda haldoorka marka ay duruufi la soo daristo duruuf xanuun iyo duruuf dhaqaale maxaa loo dayacaa hees baa waxay ahayd qof bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tegey sama kuma bannaaneen maanta waxaad tihiin yani duruuftiisa iyo xanuunkiisa dadkii ku nacay haddii aad ka jawaab weydaan baaqayga haddaan nahay walaalaha kaalmee kuwan walaalaha Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay nagala shaqeeyaan sidii Cabdi Tahliil daryeel caafimaad iyo daryeel guud ahaan loogu heli lahaa runtii waxaa ka muuqda inuu halkan ku duruufaysan yahay yani arrinkaasina waxa weeye wuuna damqay waayahay sidoo kale waxaan doonaynaa inaan bal waraysi ka qaadno inantiisa curadda waa Xamdi Cabdi Tahliil xamdi nooga waranaabo والله أبي الحمد لله رب العالمين حنون كانت كم يرين إلا لو كن شركة عبد القاسم لحيت مثلا وبسعودي أفر سرنا سرير وشي فاساس أقول أنو هاي لب كلام قبول كيسه لكن دريال عافمات وبا كم كان أنا عدان جيني دارشفان جيني هذا عدان جيني وكسرينا ما هذا عن تصينكي أبدي كويسينجر ألوسي ألوه حياة دكتورك دكفر هذا أول هلا ما وإحنا قاعدين أهلنا دكتورك أصلا بانان للوحة نوجي حبكة سلوه صاروا دكتورك ده هاد سيحنو أنا عدا قلت له صندل بسينا صندل قلنا صندل نقول له مسين كرو لك إلهي وبتكيس هاي صديع كلام ما يستلك حنون كاس وأنا أول هين دي بدنا نجينه بهاي وانتركت وحب أن التلفون هو الذي كلا صح له تلفون كذا فرق أيه شن طبعا لو سياشن اللي حسب دنيكو فعلي
5 lambarka ay sheegtay waxaad ka horreysiinaysaan haddii aad dabadda ka soo wacaysaan balaba ebereber 2526 ebereber 2526 inta kalena waxa weeye waad ku daraysaan intaasaanu ku gabagabeynaynaa daryeel yar buu baahan yahay in yaro inaga mid ah haday u kacdo waxa weeye waxyaaba badan baa loo qaban karaa baaqaygii waxa weeye waad degeysanayseen waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.